beelihii dhowaan dilalta colaadeed ku dhex martay magaalada Ceelgaabo iyo deegaanada hoos yimaada oo warbaahinta kula hadlay gudaha magaalada Ceelgaabo ayaa maanta si wada jir ah u taageeray baaqi nabadgelyo ay dhowaan soo saareen guddiga dhexdhexaadinta ee nabadeynta ka waday labadaas beelood waayeel iyo waxgarad u hadlay labada beelood ayaa sheegay in labada dhinac ay diyaar u yihiin nabad buuxda oo bilaa shuruud ah iyo sidii ay ugu wada noolaan lahaayeen dilis wanaag maanta waxaanu halkan isugu nimi oo inuu qabanayna shirkan jaraa'id inaynu taageerno nabadgelyadii annaga oo ah habar yoonis bari aanu hore u dhiibnay guddigii dhexdhexaadka ahayd oo ay nagaga wakiilahaayeen ayna ku baaqeen nabadgelyada mar labaad iyo mar saddexaadba waa taageeraynaa wakiilahaayeen ayaanu anana taageeraynaa si buuxda ayaanu u taageeraynaa wax ujeedadeedu waxay tahay reer Ceelgaabo qabiilayaal waa kala yahay laakiin deegaanka waa iskaga mid nabadgelyadana waa iskaga mid beerihii badnaa ee reer Ceelgaabo ee baaqa nabadgelyada soo jeediyay baanu ku taageeraynaa Ceelgaabo maaha qoysas badan waa hal qoys oo meel isugu yimi nabadgelyadii lagaga baaqay halkan ay ku baaqeen beelaha deegaan magaalada marka laga reebo habar yoonis bari iyo dhulbahanta oo khilaaf dhex maray intii kale yaaniga baaqi ay sii daayeen nabadgelyada ayaanu taageeraynaa waxaan cadeynayaa inaanu taageersanahay oo aan u qordhibanay marka labaad waxaan tacsi u dirayaa dadkii naga dhintay laba dhinac ma dhihin hal dhinac baanu nahay qoysaskoodii dadka naga geeriyooday samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo waxaan u mahad celinayaa cid allaale ciddii nabad ku baaqday oo arrintaa annaga iyo walaalahayna dhex martay nabadda ka shaqaysay meel la kala tegi maayo ilaahay baa dadka meesha wada dhigay wixii dhintay waa dhinteen wixii nool baynu u talinana diyaar baanu u nahay inaanu nabadgelyada lagu baaqay ee nimanka dhexdhexaadkii ay ku baaqeen ay ka shaqeeyeen qoladii waxna kala gaadheenna ay ku baaqday diyaar baanu u nahay inaanu qaadano oo aanu doorkaanu ku leenahay ka qaadano waxaanu halka ku baaqaynaa nabadgelyo oo nabadgelyo dhab ah oo rasmi ah waxaan u diraynaa dadka dhammaanba beelaha war wixii dhintay ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo arrintu halkaa ha inoogu ekaato aanu diyaar u nahay cidda waxna kala gaadheen in aanu si wada hadal ah hawshaa ku gallo aanu ku dhammaysano waxaan kaloo tacsi u dirayaa dhammaanba dadkii wax nagaga noqday labada dhinacba ee ku geeriyooday waxaanu leenahay samir iyo iimaan ilaahay ka siiyo dadkay ka baxeen Ismaaciil Axmed Maxamuud Saab TV magaalada Ceelgaabo